baqee allow nabad khayr la sii والبشارة waxaa kaloo la yiri qalalaasihii shalay dhiciyo hole ciiqii qaabay wiilashii la qalay wixii dumar la qorgooyay khasaaran ka dhaxliyo walee qoomamiyo ciile allah ayo wada qaadiray qaranka noo toos qalalaasa dagaalba loo qiildayaya qiimihii nolosha la qasaarinaya qaladba qalad lagu saxaya warnamiya gornyilanka guridu si goolabaday lamba goorti isgooyigi amilan haysada warmadeeyo war ma hayside wasiiradii maaliyadda maamul goboleedyadu waxay dhaheen wasaaradda maaliyadda federaalka xiriirkan u jarnay war ma jangiya ka go'ay war sidii ababa janga go'o makaadanga la gamada runtii oo war anigu waxaan la yaabay kuwa dekadaha leh haba goostaane kuwa kale maxaa qaaday war kuwa kale haddeeray dekada dhisayaan maamul goboleedaan bad lahayn jira war waxa la yiri danyare aan dantiis garan waa lagu danaystaa marka lagu dangaarana waa laga danaystaa axmedeero waxa kaloo la yiri dabiga bali aadamka danaysi ku saabsano waxa raadsadane dantiisa qofkaan aqoon dana qeyrkiis rabow taariikh lagu doonayo doontii lagu qaadayo gaadiid daabulo noqda tiisana waa ugu dara tabaalimaduna sida kulay taba kama duwana war wasiirka maaliyadda Puntland Abgaaron ismaqalnay waxa uu yiri waxaan isku haynaa waxyaabo aan halkan ka sheegaynin laakiin inaan kulanaan rabnay wasiirkuna kulay taba hataan xiriirka u jarnay uu nala kulmi doonaa markaas aanan xalinaynaa arrin war wasiirka maaliyadda maamulka koonfur goboleedna wuxuu yiri wasiirka maaliyadda dawladda federaalka dhowr fariin aan u dirnay waana ka jawaabi waayay markaas waxa la weydiiyay wasiirka maadaama uu cusub yahay ama uu shaqo ku mashquulsan yahay wuxuu ku jawaabay telefoonada inuu naga qabtaa muhiim ahayd haa maamu maarafa barnaamijka la handhigay war wasiirku bishuu joogay wuxuu ku mashquulsanaa la yiri xisaabaad nimanku maxay u degdegayaan war ma idaan fahmine wasiirada maamul goboleedyada iyo wasiirka cusub ismay aqoon way isbarayeen markaa war nimanku maxay u degdegeen ima baran ima baran iga bow ma waysan maqal war wasiirka maaliyadda miyaa heesta qaaday war wasiirkan wasiirkii ka horeeyay bayle wuxuu yiraahdaa moogo hurde Soomaaliya waa mashruuc war sagxada la joogaha ka dambeysay war warka iga dhaxgeline qaylada wasiirada maxaa sababay ma mashruuciya ka go'ay araana hal masaasadii oo afgalku kuroogsidiya ka hale war wasiirada maaliyadda maamul goboleedyadu waxay dhaheen heshiisyo hore jiray inuu fuliyaan laga rabaa telefonkiina qaban maayo aga wareedagooyin idinku arinta buunbuurinine wasiiradu arinta ma qaawina waa qisheen waana la xalinayaa war ma way weyn qishar badan ku dhacday war wasiiradu wixii bayle barmay u baahan yihiin wadiyaaqay lama goodle walla buunbay way ka aakadoonaan dhahay war waxaad barato waa baaska war gudoomiyihii ku meel gaarka ahaa ee aqalka sare oo ahaa duqii ugu daada weynaa odayaasha senator gaagaab oo gaalkacyo ka hadlay wuxuu yiri xilalkii macmacaanka lahaay oo dhan waxa wada qaatay beesha madaxweynaha haddaanu Puntland nahayna xil nagama raacina magac baa naga raacay haddii si aan wax u helno waa in midnimada Puntland la adkeeyaa buu yiri war gabdhasow gaagaab waaba senatare ma ahla in loogu daro rabay war senator gaagaab oo ah odagii ugu daada weynaa aqalka odayaasha hadduuba siyaasadda sidaa uga hadlay maxaa laga filan karaa 30 jirka ku cusub walaa u naxariisto sooran wuxuu hadda ka hor yiri nakeena haddaan xilkii helana waa okay haddaan waayana afkaan u dhacnay aan banaan baxne ariya senator gaagaab waxa kale uu yiri dawladii hore waana kala qaybisay haddaan Puntland nahay qaarana madaxweynihii hore xabiibu malaayiin ula baxay asagoo shacaba oo waagadan sawiradiisa ag fadhiya horta dadkaas la sheegaya ma xabiibay ag fadhiyaan mise malaayiinta wareedka muwaalidiin xabiibul malaayiin madaxweyne farmaajo waa xildhibaan yaayir waa shacab war senator gaagaab dawladii farmaajaba 3 sano juuq lama dhihine wixii asaagiin la aamusnaa 3 bilood ma u dul qaadan waay aga wargooyin arintu sidaa uma weyn annagana xalinayna iska aamusa war aga ya bilaashin lata lanki habarta fadaw gabartay ka siya malka qan ii koro war waxba habuuqinina Puntland waa hay'adii federaalka ku dayo Puntland ku dayo miyadnaan maqal war ma haysana wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Ahmed Macallin Fiqi wuxuu la kulmay odayaasha dhaqanka qaar badan hore loo dilay waa banaabaxana miyuu yiri war intii dhimatay miyuu uga taxsiyeeyay nabadoon dambe la dili maayo ma yiri warwarkana ku soo boodinine wuxuu yiri dawladda Soomaaliya waxay u diyaarsan tahay al-shabaab inay la dirirto odayaasha dhaqankana waxa loo baahan yahay inay dagaalka ka qayb qaataan war nimanka la soo xaajeesta miyuu ka wada masaxabadeeya war odayaasha waa la idin hubay ay macuusle ku biiramiya la yiri odayaal baadin la kooy diidin ay qaataan maraasa laakiin dagaal galmo maraas widay war odayaashu Soomaalidu markay dirirto isdisho rag dhintaan iyaga garta gali jiray oo kala xalli jiray xeer iyo xukunna waa u kala lahayd duugta iyo karbanta
cashuurtana waa u kala qaadi jireen waxbaana ka soo geli jiray laakiin shabaabaa dil tiro badan oo odayaasha waxba ka soo gelayn la yimid inay la diriraan oo iska dhacshaanina waa ku waajib war adigaan war hayninee shabaab waxaa kaloo la yimid inay odayaal cusub samaystaan kuwii horena laayaan war wasiir fiqi wuxuu yidhi odayaasha la dilay ee wasaaradda arrimaha gudaha u diiwaan gashan waa 424 haddii sidaan ha usii fadhidaanna inta hartaa la sii dilayaa marka adeerayaal oo fadhiga kakaxuu yidhi aryadhaha anigu waxaan la yaabanahay fiqo odayaasha wax iska dhaxsha muga u leeyahay awday dowladi loo doortay inay dadka cadowga ka celiso wargooyin dowlad deegaanka soomaalida markuu shabaab weerarayey odayaashu ayagaa dagaalku hogaaminaye war kalamaanay waxaa la yidhi allahayow siyaasadu daday oo misaan nahaye oday iyo ugaas iyo daday dhaqan ka iimaysay oo ay asluubtoodii guud aastay baan nahaye anfaacigii dhulkoodana daday iibsataan nahaye may aamayda mooye hufnaan laga abaarowye argagixiso daday haysatayo aadun baan nahaye ilaaha waxaan kaa baryaa dowlad aamina war soomaalida oday iyo carruur iyo culummo iyo caami iyo rag iyo dumar intuba inay isdufaacaan waajibay ku tahay madaxda dowladdana waxaa laga rabaa shacabka iyay ku meeraysane kow inay furunta galaan waa shirqool qarantaasi madaxda waa la ilaalshaa aga war ma qarandumisba war furunta in la tago diyaargarow baa ka horeeya oo yaa laga rabaa marka war calaa kulli xaal shabaab dhibka dhaafa ku dhaafi maayaan in layska dhacsho maahane aryadaha idinkoon isdaalin samigay cabdullana waxa uu yidhi niman indhaalehayn iftiin wixii agyaalku u arkima niman indhaalehayn iftiin wixii agyaalku u arkima aryadaha waxaa la yidhi boqolkii maalmood ee madaxweyne xasan sheekh ku ballan qaaday wax badan inuu qabanayo ma uusan hirgelin war tareenkaad ka herta miya war ma aragtidaada mise waa laguu soo akhriyey aryadaha haddaan soomaali heshiisa dunidana heshiis laha xabad kama fulin miyaad leedihiin war taageerayaasha madaxweynuhu waxay qabaan madaxweynuhu boqolkii maalmood inuu ku guulaystay dardargelinta dayn cafinta oo hakad galay gebagabadii dowladdii hore qiimaynta iyo wax kaqabadka xaaladda baahsan ee abaaraha dalka ka jira hagaajinta siyaasadda arrimaha dabadda oo ay ugu horeeyaan waddamada deriska iyo dowladaha soomaaliya saaxiibka la ahaa dhiirigelinta arrimaha ganacsiga iyo maalgashiga soomaaliya iyo qorshaha iyo u diyaargarowga howlgal dalka loogaga xoraynayo argagixisada warna miyaw taageerayaasha madaxweynaga CBB nagadeena war idinku dhaliisha waa sheegtiine waxqabadka in la sheega ma idin dhibe war waxqabad in la sheegaa ma xumee ma la qabtay dee aga war ma mucaarad baad noqoteen warna miyaw hagala geel wal gundulka garsada ku wiinyina wal hoob la goobada muuqda fadhi war madeeyow lafta gareen waxqabad xasan shaqeynaa sadarkeena waa loo geeyay war qoorqoor iyo lafta gareen oo xamar isku joogi jiray sidii xasan sheekh loo doortay agta soo ma dhigan oo hadda taas waxqabadkay ka mid tahay miyaadna leedahay war waxbaa la qabta waa la dhihi karaa laakiin inta laba dowladood iskor fadhido waxba qabsoomi maayaan oo hadda xafiisyada ragga horaa fafadhiya miya aryadaha madaxda dalka joogta dowladda cusubu mahad salaad iyo wasiiraday ku leedahay inta kalena heleesweydiimaha waa og tihiin waxaana maqli jira tagoogyaa qoob dambeestaafo tacadii baadanaan tuhma tagoogyaa qoob dambeestaafo tacadii baadanaan tuhma war madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi wuxuu yidhi mar kastoo ay doorasho dhacaysa waxaa yimaada muran waxaana sababa nidaamka xisbiyada badan aan qaadannay iyo innagoon dimuquraadiyadda u bislayn war madaxweyne muuse biixi hadda ka hor waa kii yidhi cirra wuxuu soo daawaday madaxtooyadii srilanko loo daadanaye hadda asagu ma daawaday madaxtooyadii ciraaq oo lagu dhex dabaalanayo war hogaamiyaha shiicadda ciraaq muqtada sadri waxau taageerayaashiisa ku amray inay banaanbaxa joojiyaan war ma haysaane dowladda etoobiya waxay diyaaradaheed u duqeeyeen caasimada tigree ee maqale dagaalkiina weli wuu socdaabaa la yidhi haddee waxaan u malaynayaa kabtaydi ma aragtay inay ka dhici doonto war ra'iisul wasaaraha Itoobiya Baradan Abi Algeria joogaa war goonayn muu isdhiibay war muxuu ka doontay war masar igala hadal webiga kuma haystee miyuu leeyahay war ma haysiine dacwadii doorashada Kenya waa socotaa maxkamadduna waxay amartay qaar ka mid ah sanduuqyadii doorashada in dib loo tiriyo Raila Odinga rijaa gashay la yiri war maxkamadda Kenya waxay ku amartay madaxda Kenya
wixii maanta ka dambeeya maxkamaddu waraysan sheegin qofkii sheegay inay tallaabo ka qaadayso marka nin walbaanaa guulaysanaya inuu iska dhaho oo xaflado samaysta waa la diiday oo hadda uhuru kenyaati juuq ma dhihi karo miya doorashada ma ka hadli karo war madaxda lagu sheegayahay kuwa tartamaya weeye war harta idinku waxaadnan aqoon maxaad ugu burutaan ma adigaa yaqaan marka muxuu aqoon waaye ma waxaan aqaanaa jira mugariga sheeg waxaa taqaano anu dawladaan raba dowladnimo war dagaalka joojiya dalka dalkiina u shaqeeya